sababtoo nin baan maqlay maalin dhaweed halkaa xisbi ucid baa ladhaa iyuu haystaa la idhaahdo oo maxayaa tira aan magacaad u sheegtaan ayaa wuxuu lahaa extermination baa lanagu sameeyey dowladdii maxamed siyaad bare extermination maad garanaysin iyo genocide iyo extermination waa la dabargooyey weeye xaggee haddaa ka yimaadeen haddii dabargooy waa lana dabargooyey macnaheedu waa maxay waxba lanaga reebin weeyaan faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu waa la dabargooye weeye extermination waa la dabargooye weeye genocide-na xasuuq baa dhacay walow waxba ha hadhaane markaasaa muxuu ku dacweeyey ninkaas genocide-yan la odhanine extermination hal nagu qoro inay dowladda maxamed siyaad baa na dabargoysay istanbul buu iyuu ka hadlayay shirkii lagu qabtay ugu dambeeyey hadda ay ka soo noqdeen ninka maxamed maxay biixi yunis la dhahday iyo waa la rabaa xamar in la dhahdo waqooyi oo dhan baad dabargoyseene qaanteeda un bixiya sida yuhuuddu hadda holocaustka wax ugu qaadato halkaasay malaha tixraacayaan holocaustka ma taqaanaan yani waxaan yuhuudda ay caalamka yurub iyo maraykanka ku dhacdo waa na xasuuqay ama laydin xasuuqay wax walba qaata aamusa waxaase anugu xisaabiyey ilaan mutacalim baan ahay waddankana waan joogay intaa waayo qoladii ufa la odhan jiray ugu horeysay ee laga xidho snmta ka hor inta waxaan snm la dhaha soo bixin qolo ufa la dhahdaa ka horeysa anay jeelka hargeysaad bay igu yimaadeen iyagoo la soo xidhay ana jeelkaasaan ku jiray ana diinin baa laygu xidhi jiray qoladaasi 81 aan isku nimidnay jeelka ayaa ugu horeysay ufa la odhan jiray laga soo bilaabo ufo ilaa 91kii markay waddanka qabsadeen ay ku gabagabeeyeen xasuuqii boorama wixii laga laayay iyo hal habeen oo 6 iyo 10 saacadood ay boorama iyo dila ku jireen yaan isku xisaabiyey ma dad xisaabtamayso 6 iyo 10kii saacadood ma aanu ka sheekayna dadkii kale ee lagu laayay dagaalada dagaal buu waddanku gabigiisa jabhaduhu geliyeen laakiin waxaan ka warramayaa xasuuq waxa la dhahaa ummad shicib oo iska degan oo loo yimaado aqalada lagu laayo naagta la dilo ilmaha la dilo odaga la dilo oo sheekha la dilo oo maxayga la dilo oo bacmasarka la dilo taasi boorma un bay ka dhacday meel aan dagaalamaynin oo inta la iska soo galo oo weliba ciidankii mingiste jiibkii u horreeyey anu toortaasaan ku taagnaa muxuu ahaa sheekh cali jawar ee qalbigu yahay jiibkii ugu horreeyey halkaa dhaktarka markuu horumarayo gaarigii ninkii la odhan jiray alla naxariistee meeyarka ahaa maxamed xasan maaful oo carruurtiisa iyo dumarkiisa oo dhan ku jiraan ayuu ka daba tago waata halkan biyaha shaaba marka la hormarayo ayuu ku dhiftay madfac reerkii halkii ku dabar go-ay nala ina yar baa ka baxday iyo maaragtay waayo waxaa magaalada soo galay waxay laba ciidankii mingiste oo dabaabadiya jibabootay iyo snamtii labadaas isla socday subaxii 8dii anu buurtaa mar habeenkii oo dhan ku taagnaa ilaan ma gamayso wadniina nafti halkan bay timid moogtahay balaqat alquluub alxanaajir biyo ma la fikirto haddaad biyaha ka bato wallaahi halkaa ma dhaafayaan qofka markay cabsidu ka badato iyo dhibaatadu ilaan moogtahay kolka halkan kaa marto ee halkan kaa marto ee kan agtaadu dhinto ee meydku ag yaal khalaas habeenkaasaan xisaabiyey kolkaas aad u soo raadiyey 764 qof ayaa dadkii ugu dhowaa ay maaragtay ay sheegeen raggii weliba tirinaya ciidamada ahaa 764 kolkaan u qaybay 6 iyo 10 saacadood saacadiiba 8 iyo 40 qof bay dilayeen magaalada maaragtay saacadii walba 8 iyo 40 qof limaada kuwa xisbiyada haysta kuwa wasiirada kuwa maxayga ah waa lana laayadunhay waruuxu Soomaali islaysay yahay Soomaali islaysay oo waliba jabhaduhu gardaraayeen ila dawlad dhan oo Soomaaliya loo dhintay taariikhda ka tireena oo iminka si loo keenay la garan laayay meel alla meel laga keenay iminka dawlad Soomaaliyeed baa ku filaysay Soomaa inta cirku inoo jirta dawladdaas xagga Ilaahay aanu kuma darin laakiin kolka aad eegto siyaasiyan sida Soomaalida loogu talagalay ee reer galbeedka xataa carabtana ku daro burcada ah xataa carabtana ku daro caalamku maanta wuxuu go'aansaday in wax Soomaaliya la dhadaayo dib dambe dawlad loogu arag laakiin ay noqoto
wax camal barasaabi oo kol jigjiga looga yeero kol la maartay adsabo looga yeero la yaro madaxa loo yaro weydiyo adsabo looga yeero leenka adsabo marka looga yeero inaga waxa weey nin aad loo maamusay Nairobi iyo kol kale nooga yeero madaxdeena loo yeero waa dad la maamusay ila abaygo lidalik harayba bari hore halka uga yiri war Soomaali way saamaxday nin walba meedkiisu iloobay أنا ولا شيء فوق استانك هرجيسة ولا laga soo baxaya ayaa lagu dilay kolkii ninkeedina la dilay iyadoo foola sagaal bilood macallimiin caloosheeda ku jiray fooshay iyo halka ku dhintay walaalkii halkii waxay ku dileen xaggan hoose buurahan bay ku dileen wala hadana waxba kama soo qaaday waa Soomaaliya islaysay fitna dhacday laakiin dhacdado wala xasuuqay doon hadan hayo ceeb weeyaan Soomaali midnimo kama maarmayso hadda halka istorka gargaar la yiraahdo Hargeysa waxa ku yaala istaanka garowe looga baxo ku yaala mise kuma yaala halkan waxa ku yaala istaanka jigjiga looga baxo Soomaali ma cidii doonto raaysa Soomaali soo bas u dhex socono waliga kala goymayso cidii si noolata ogaato ciyaar ma waxaan dii sheegayaa سؤال يرو قابن بان أود فهمتان بان يدكو السين كل إنه لبا كوي صدق كوي سنة دفبوا قادنا إمكا إن مريكا كي يربو دوفين إنه إن بنت الشيء إنه إن الصحابين والبي أرمى الصوق هشا ما الله سعوتان بورا ما شيء هذا ما الله سعوتان أنت هبين والبي أرمى الصوق هشا مثلا بورا ما بدك الله ما السوق أضف فرصته إلى المعنى والبردوم العصبة يماد عرور العصبة تمادا تقريبا هبين والبا لبا تنقص way soo gashaan oo isjiidanayo oo deena waa masaakiin bananaay socda ayaa soo galay mara dir dabal la raayay lahaan jiray maanta sayaale ma la socotaan dir dabal Soomaali baa lahaan jirtay maanta Oromaale maantana Oromaale ahad midib male boqolka sano soo socda ma kontonka sano soo socda boor ma inay noqoto magaalo Oromo هذا المال بل يرتب الشيء يا سكر يصير مستقبل بان يكسر يناله مستقبل كودو ياي كيروب أدو يا عيسان أنا كجواب ماي وباب كله لكن أدو مستقبل في الصومالي إن أتاي الدولة يلون دونتو ودوّد كان يلون دونتو ودوّد الشركة سميسان دونتو سيدا ما أنت أنا نعلم مايا ولي جدنا لو قاري ماي على أي حال وعنو جدا هدين لقد دين وايو ولا نلايده لين تدبتي بالشيك هل هبين لح تدور بقول إيه لح أفر لح الضمر إيه عرور إيه مساكين إيه بعمشتر وهنتو دين اللقاتب بقول مليون واحد بدن هل كان أجرتها لكن يا هذا يود الدمع سياسي دي وفجقات فجوت هرجيسة كيد بدأ تجي سيدا قليها خلوق القلية أنا ما قلية هيربوا لهم قبيلاتهم كلا صع كندا بحدث هي مريكا كدحدث أنا الريه بري أنا أنت أصلا كشق إن هدان كده برسمان نو بحكي لما النقام ما أورن كريان حتى أمنس انترناشونال أنت وتجان أما قالوا يا هيومن رايتس واتش إلى إيران تاريخ واحد جرت هلها بيانو أنت سوقف لجود المال عين كاس ما أورن كريان على أي حال والله يرجع يسكن معنا هي هلا حساب تمو ولي أنا هرم الشباب حقولي محمد صديق برية رجين كيسي دمان آخره يتجين نكال الدعوية لكن أنا كوي هلك وحكول لاي وزير هذا هذا الشوقة ويان كي ولي هذين كله جامل يبقى هو وزير قررنا وحصل لي قبلها كوي تكنيكال وضع متكملة جابين كده تكليني مركي لك يا ريت طريق قبل لقى صور دقي إيه مركينا قرتين نمونا كيا هاي لا يعبلوي على أي حال Soomaalida waxa looga baahan yahay inay waxa ka koraan aanu imika qabiileedu kuma tirtirsiinayo waa sa idinka tirtirsiinaya ka Hargeysa ka hadlayo oo kale
aragtidiisa anu ma qabo anu waxaan qabaa aragti Soomaali ah Soomaali ila NFD ila Djibouti anu wali shantii uma rumaysana shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan iyo lagu heesi jiray bariyo shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan marka lama xoolo jireen nin lagu saddexdii maqnaadna way soo socdaane nin lagu seexdo ha seexan soo jeedo si weyn u foojignow waxaas ma hees baheed mise waxayd murti idinku waxba kama garanaysaan maanta wallaahi billaahi maanta idinka qofka Itoobiyaanka ama Kenyaanka ama Soomaaliya ka sii shaqaysa ayaa wax walba kala qaalisan laakiin Soomaaligu saas u eegi jiray waxa jira odayaasha Ingiriisku qortay looran jiray timacada looran jiray ee ciidamadii dagaalkii labaad inay raadsan gaduudan hanagu darin aan hilib waxaan ma cunano kasaafahan iyo waxa jeesay arabkhadiyo ma cunno yiraahdeen saas dadkeed ciidan gaar ay haayeen laakiin iyagu maanta waxaan ogahay inaka jaamacadda ka soo baxay mastereedkii in aan yaro keenayna salada u qaadayo oo laan kuruuska ka saarayo waayo midna gaar buu ka yahay midna waa turjumaan midna waa darawal intaas aan u qaybsanay